waxaan rabaa inaa hal wax aad iyo aad u xasuusatiin oo ah dadka intay ku fiiriyaan wax kaa sheegayo oo waxaa isku dayaysa inaad suubisid wax ka sheegayo badanaa waxay u badan yihiin dad ayaga waxaas isku suubiyo maadaama saas isku suubiyaan ayaga meel fiican adduunka ka gaarin qofka naftiisa soo dhisay oo dhinacyo kala duwan ka soo dhisay waa qof fahansan taas arrintaas inay si fudud ku dhicin kow inaad dhacdid inay ka horeyso dhowr jeer aad dhacdid weligaa dhicitaan horta ma dhamaanayo adduunkan bad noocyuu kala leeyahay ee leebaluu kala leeyahay qofka waa inuu dhacaa jabaa istaagaa dhacaa jabaa istaagaa dhacaa istaagaa jabaa saansaan waa caadi qofka adduunkanay tafahmay wuu fahmayaa markuu kugu arko kuguma caynayo inaad dhacdid oo jabtid wuxuu kugu faaninayaa kicitaankaas ah kacdid buu kugu faaninayaa sababtoo ah kulli waa la wada dhacaa laakiin kulli lama wada istaago taas inaa xustaan rabaa haddaa tahay qof isku dayaya wixii noqotaba dhinacii noqota ha noqoto haddaa tahay xataa hooyo adigoo xanuunsas waxaba intaa kacda ciyaalkaada iskuulka u diyaarinaysa oo ciyaalkaagii aad iskuulka u geynaysa adigoo rafaad kaa muuqdo dad intay ku fiiraan ay ku dhahayaan allah marka walba tan rafaadaa ka muuqdo waxaa tahay qof fiican weli sababtoo ah ciyaalkaadii waa meel geysanaysa adigoo xataa dhib kugu tahay intaa sariirtaas aad kasoo kacday ciyaalka iskuulka aa geysay khatar ah aan la heli karin qofka meeshaas joogo oo og adeega ee tahay inuu qof waarida saaca weli caadi anaga barafka ma ujeedaa barafka waqtiyadan lagu jiro soo baxdid oo ciyaal gaari kusoo qaadi oo iskuul keentid wax fudud ma aha dad baa kugu dhaha qofka wax fahmaayo wuxuu fahmaa intaasba inay adag tahay aa suubisay marka inaa qof fiican tahay way og yihiin laakiin dadka kugu caynaya muxuu make up badanaa dumarka xoogaa isha aad loo saaraa maalin hore post aan arkaya youtube facebook raalahaada waxaa la dhahay gruubyada aabaha qofbaa wuxuu boosta qofbaa wuxuu soo qoraya ama hooye hadduu aabaha aabaha wuxuu soo qoraya cunugeyga maanta shiranjartuu ka soo dhacay dumar markay tahaa la dhahay markii maama gruupka markay tahay dumarka dhahan maxaa kaa qaldan cunugaada maxaa u fiirsan weysay hooyo xunaa taha baa meesha loogu soo wada qoraya ciyaalkaaga cunto xunaa siisaa cunugaaga hadduu jabo adiga ayadiyaa lagu soo boodaya lagu qaqaylina aabayaashana waxay kusoo qoreen meesha LOL qosal camal aabayaashii cunugii dhul jaranjarta kasoo dhacay qosale uu arkeen markuu aabihii u sheegay hooyooyinkii laakiin hooyadaas way kusoo jeesteenoo ayadiyaa waxaa loo xagxagtay maxaa kaa galay see u dhici karaa cunuga adi intay jirtay maxaadan cunugaada isha ugu haynin maxaadan cunugaada ugu warqabin baa la dhahay marka wallaahi waxaan joognaa adduun nimankana culeys gaara haysto dumarkana caloos gaara haysto adiga waxaan rabaa inaa xasuusatid qof wax kaa sheego ama qof ku dhahayo saan waa inaa noqotay sidaan way xuntahay sidaan way xuntahay sidaan way xuntahay waa qof aan ayagaba gaarin ama suubin wixii looga baahnaa waxaa maamaah baa jirto la dhaho markaa aragtid qof haysto wax adiga aa isku diiday ama adiga aa isa siin weysay ama aa waqti gelin weysay waa ka xanaaqaysaa dadka qaarkood oo kugu caynaya wax oo dhulka kugu jiidayo u malay inay dhulka kugu jiidayaan oo xumaanta le ka dhacaysa mar walba kaa soo gaarayso ma aha dad because way kaa wanaagsan yihiin ma aha waa dad markay ku fiiriyaan wax iyaga naftoodii u waayeen ama isa siin waayeen ama isku quuri waayeen ama cabsi daraaddeed u diiday baa haysataa waxay tahayba qasamaha xataa inuu ahaado waxaa adig ka warqabtid wax fudud oo adiga hadda qiimo agtaada ka lahaynoodan garanaynin inaa haysatid inay tahaa laga yaabaa adig kama warqabtid badanaa anaga markaa yidda aan haysano badanaa kama warqabno haddaana suubin shaqada dib iskugu noqida oo la dhaho inner work aan anaga nafteen dib ugu noqon ma ka warqabeeno hadiyadaha anaga aan leenahay taasoo waxaa dad badan u keeno inay dadka kaleeto fikradooda cirka geeyaan maxaa la dhaha kala jeclaadaan fikradaha dadka qiimo u yeel xushmee laakiin weligaa isku day inaysan ka hormarin fikradaada now qof ku dhiiragelinayo
okay qof ku dhiirigelinayo xataa dhiirigelinta boqol nooc ay ku imaataa haddii kula fiican tahay qaado hadduu qofka anay xataa wax kuu sheegayo haddii adig kula fiican tahay qaado laakiin waxa aan rabay inaan maanta ku xasuusiyo waxaa waaye hadduu qof ama dhiirigelin ha ahaato ama hadal bahalkii kale advice ha ahaato haddiiba mar wax kuu dhimayso ha qaadan sababtoo ah qofkaaseeto waxay u badan tahay inuu kaa dhex arkaan wax ayaga naftooda u diideen ama ay u quurin ayagana dadkaas adiga saas kuu maamulayo noloshooda ayaga ma lahan sababtoo ah waxa aan nafteeda u tarin adig kuuma tari kari haddaan aniga aqoonina isxishmeeyo haddaan aniga aqoonina cirka isla joogo anoo qofna isba bardhigeenin just anaa cirka isla joogo macnaheeda maaha dadka dhulkay joogaan qof walba wuxuu asaga isku arkaa ugu muhiimsan dadna inaa isba bardhigto mabaan marka dadkaas camal waxaa waaye ayagaba dad kale u nool yihiin sababtoo ah adigay ku jaaj garaynahayn macnaheeda waxaa waaye ayagana waa isjaaj gari ayagana way isku maqan yihiin aday kugu maqan yihiin because ayagaa naftooda ku maqan weligaa ma arkaysid qof naftiisa ku maqan oo firaaqo u haya qof kale ma arkaysid sababtoo ah macquul maba ahanba laba maskax ma lihid haddaa maskaxdaada adiga ku mashquulan tahay meelaha kale dhan waa ka mahsan tahay waa ka maqan tahay muu haysid maskax qof kale ku maamushid iyo aad jarrabtid inaad ku maamushid ma haysid waxaad jeceshahayba qof walba inuu wixii naftooda ayaga sax u isuubinayaan sababtoo ah macaankeedaa aragtay waxaa aragtay macaanka ay leedahay markaa naftaada ku mashquulshid walwal iyo walbahaar iyo dad kale ka fakar waxay kuu maleeyaan iyo dad kale ka fakar waxay kaa rabaan dhan daaqadu ka baxaysaa because gudihii intaa ku jirtaa banaanka qofka markuu banaanka ku maqan yahay because maxaa la dhahaa kaleeto laba meel ma wada fiirin kartid hal mar indhahaada xataa arag intaa il ku saaro inta il kumisas midna kuma arkari always hal dhinac la isla aadaan literally qalbigaadana waa saas so awan inaad taas ogaatiin walaalahayga qof haddaa aragtid dhulka jecel inay kugu jiidaan macnaheeda waxaa waa iyagaba waxay nool yihiin nolol noocaasa dad baa ayaga dhulka ku jiido ama ayagaa ka cabsanaya dhulka lagu jiido marka saas daraadeed adigana they're just projecting ereygaa la dhaho projecting waa muraayad waxaadan adi naftaada u tarina qof kale uma tari karti wallahi intaas waa aaminsanahay sababtoo ah kulligan waxaa ka hadalnaa meesha aan markaas joogno sayingkan ma maqasheen meet people where they at qof walba meeshuu isaga joogo ugu tag camal waaye maanta waxaadan ahayn kaama sugan kari because you have to get there on your own I can't expect you to get there mugulaalahaygi waaye that's a little angel marka maxaa la dhahaa kaleeto adiga ogow qof wax kaa sheegayo qof ku yasaayo qof niida raba inuu kaa jabiyo qof raba inuu xumaan ku yeelo qofkaaseeto miskiinka ah isagii dhibkaasayta haysataa ayagu dhibkaas haystaa adiga you're getting 25% 75% ayagaa ku maqan tahay 75% ayagaa isku suubinoo dhibkaas xanuunkaasayto waa dad xanuun ku nool maalin walba badanaa xanuunadaanayta caloosha fadhiso literally xanuuno badan oo dadka ku dhaco chronic xanuunyada inflammationka la dhaho wuxuu ka imaadaan badanaa qofka qalbigiisa qalbiga ciyaar maaha soo qalbigaaga hadduu iska fiican yahay adigana quruxda ku noolaanaysaa xataa noloshaada xataa way fududaanaysaa caafimaadkaaga maqaarkaaga xataa wuu quruxda ku ahaanaya waa iska caafimaad qabaysaa xataa wallahi caloosha ku yar tahay maxaa la dhahaa xumaanta qofba qof kale intuu kaga yaryahay xumaantana waxaa ka wada camal inaa maseer ku galo inaa qofkan see u haysta anay u haysan ani maxaa iga qaldan ani ilaahay ma jecla miya ani ilaahay maxasaan iga galaa isdhadhiidaas iyo qof kale wax haysta marka kaarid inaa ka xumaatid iyo haddaawa qof kale aniga waan jeclaa inaa arka dad maalka aniga aan rabo haysto inaa arka waan jeclaa sababtoo ah waxaan ogahay qofkaas oo bini'aadinka ayagaba yaa hooyo aabba baa dhalay adduunkan sidaani u joogaan haddii ayaga gaareen waxaas anna waan gaari karaa anigaba waan gaari karaa wax walba uu qof kasta gaari karo
anigaba waa gaari karaa maybe inay ka dheer muddo dheer igu qaadato maybe waxaa laga yaabaa rafaad badan inaan u maro laakiin haddaaba hami u hayo waa gaari karaa hami ma jiraa bas waa gaaraysaa hami iyo shaqadeeda inaan qabsado iyo aaminida inaan aaminsana inaan u qalmo waxaas inaan u qalmo aanan u malaynin dad gaar leh waxaas nasiibkaas inay leeyihiin waxaa la dhaha maamaha baa jirto luck prefers the bold haddaa tahay qof oo meelgalgal badan meelgalgal xumaan kama wada waxaan ka wadahay hami badan haddaa tahay oo like wax walba isku dayaa camal businessaa fure wuu kaa kala jabaa ma dhehaysid businesskii waagi kaa jabaa weli maskaxdeeda ka yeeraya ma dhehaysid mid cusub oo kale haddana furaysaa okay taas waxaa waaye qof hami badan oo wax ma joojisa action mar walba wax lee lugta meel lay kula jirtaa marka weligaa don't give up on yourself ha iska daynin you can get anything aad rabtid waa heli kartaa adduunkan waxay noqotaba waxaa u baahan tahay le naftaada aaminideeda waqti siin iyo waxaa u baahan tahay inaad qabatid waxay loo baahan yahay lagu gaari lahaa marka main topican waxaa waaye inaa idinkala dhiirageliyo haddaa aragtid qof jecel xumaan iyo niyadda inay kaa jibiyaan ha aaminin ayagaa dhibkaas isku soo suubiye adiga qaybtaada qabso qof kasta wuxuu afkiisa ka hadlaa ha ka hadlo it's none of your business maxaa dhahnaa it's none of my business ma dhahayna I don't care ma dhahayna I don't care because I don't care insinuates defense inay jirto waxaan dhahaynaa it's none of my business sababtoo ah qof kale oo weyn oo adult ah siduu rabo inuu u fakero ani shaqadayda maha inaan ka baabi'inayo mase sarta inaa u fakertid haa haye waa sheekada laakiin aniga waxa aan qaadanayo oo xareysanayo waa aniga i jirtaa wixii maskaxdayda aan gashanayo aan beerkayga ka aaminayo aan dhahayo haa saasaa runaa oo realitygayga ka mid noqonayso oo truthkayga noqonayso waa inaa ahaato wax aniga make sense to me if it doesn't make sense to me it has no place in my life it has no place in my life like I'm not going to accept that at all okay so walaalahayga waa idin jeclahay aad iyo aad waxaan idin rajaynayaa maalin fiican oo wanaagsan haddaa videogaanayto ilaa all the way aa fiirsatay fadlan subscribe isuubi and then notificationka siraab garayso sababtoo ah waxaan u malaynayo dadkayga badan oo igu dhaho janaalkaaga waan raacaa laakiin videodaada ma arki waa fiirsan lahaa haddaan arki lahaa waxaa waaye YouTube badanaa dadka ma tusiso videogii ma arkaysid haddaada notificationka siraab garaysanin aada u mahadsantihiin kheyraa idin rajaynayaa